higankeni iyo qawlihii guud iyo guryantii waa horseedaheni dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheni jangoynta himilada. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hawlaha guud dhulka iyo guriyinta jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa barnaamijkeena maanta inoogu martay hanti dhowraha gudaha ee wasaaradda hawlaha guud mudane Khadar Daahir Cabdisalaan dabagalka iyo la socodka shaqada shirkadaha dhismaha iyo dhismayaasha. abraaca diiwaangelinta wuxuu ka bilaabmayaa codsaduhu wuxuu u soo gudbinayaa dalabkiisa wasaaradda hawlaha guud. wasaaradda hawlaha guudna markaa waxay raacin doontaa injineerkaasi oo tegaya goobta shirkadu ay ku taallo. markaa waxaa laga eegi doonaa qaybo kala duwan baa laga eegi doonaa. marka koowaad waxaa laga eegayaa qiimeynta guud iyo inuu kasoo baxay mandatory requirementskii iyo shuruudihii asaasiga looga baahnaa ee ka mid tahay inuu leeyahay xafiis shaqaynaya, inuu leeyahay in uu leeyahay workshopkii, inuu leeyahay waxyaalihii asaasiga ahaa ee mandatoryga ahaa ee laga rabay. marka labaad waxaa la qiimeynaya qiimeynta farsamo, haddana waxaa la qiimeynaya qiimeynta maaliyadeed, haddana waxaa la qiimeynaya badqabka iyo badbaadada dhismaha. mid walibana waxay leedahay weight bay leedahay iyo qiimay leedahay la siinayo, iyo qiimahaasi ka koowaad ee mandatoryga ah ama asaasiga ah ee laga rabo shirkad waliba inay yeelato ama ay soo gudbiso waxay leedahay waa 10 dhibcood, halka qiimaha farsamana uu noqonayo 65 dhibcood, halka qiimaha maaliyadeedna uu noqonayo 20 dhibcood. inuu leeyahay marka habraacyadii badbaadada iyo badqabka dhismayaashana ay noqonayso 5 dhibcood ay noqonayso. marka haddii aynu si faahfaahsan aynu u yargallo qiimeynta farsamo ee looga baahan yahay shirkadahan marka la diiwaan gelinayo, dhammaan nidhi 3 darajo kala duwan baynu u diiwaan gelinaynaa oo darajada A iyo darajada B iyo darajada C sax. qiimeynta marka looga baahan yahay shaqaalaha, xagga shaqaalaha hadaynu ka eegno injineer ahaan maadaama waxay dhismo tahay waxaa laga rabaa shirkadda gradekeedu ee yahay 3 injineer baa laga rabaa, khibradiisuna ugu yaraan ay tahay 5 sano, halka laga rabo hadday darajada B tahayna 2 injineer oo keliya, darajada C-na ay tahay 1 injineer oo keliya. labada dambe ee B iyo C khibradooda intee noqonaysaa lagu xiri karaa? B-du waxay noqonaysaa 3 sano halka ay C-duna 1 sano ay noqonayso. waxaynu u yaraynay ama aynu u fududaynay si shirkadaheenu ay chance helaan. marka abraacan aad buu fudud yahay. shirkadda markaa mid walba darajadeeda ayaa lagu diiwaangelin doonaa. maamulayaasha shirkad ka shaqeynaya managerska ah eeda 3 baa laga rabaa, halka bida laga rabo 2, sidana hal laga rabo. accountantska iyo xisaabiyaasha iyaga laftoodana waxay isweydiin mudan oo soo dhan kartaa maxaa managers iyo accountants iyo xisaabiyaal shirkadda isma u geeyay. waxaa jira shirkado badan oo waddankeena ka jiro oo inta badan markay muddo jiraan ay shirkadahaas ay dumaan ama ay bankruptcy ku dhaco ay kacaan. markii aan markaa daraasad ku sameynaynu baadhnay waxaan ogaanay inaanay shirkadahan loo maamulin qaabkii ugu munaasabnaa loo maamuli lahaa, oo aanay lahayn xisaabiyaal, aanay lahayn managers, aanay lahayn. marka in shirkadahan la kobciyo waxaa qayb ka ah in maamulkoodii laftoodii la dhiso. taasaa markaa keentay inaanu ku darno iyo anagoo isticmaalna best practiceki iyo waxyaalaha adduunka laga isticmaalo. foormaanada oo kale 15 baa laga rabaa shirkadda eeda, halka laga raba bida 10, sidana laga rabo 5 laga rabo. sidaasay u soconaysaa. marka shirkad walba wax lagu diiwaan gelin doona darajada ay leedahay. waa si wanaagsan. marka habraaca la eegayo cid aan xaq u lahayn qaasada ruqsad waayo kow xagga da'da laga eegayaa. macnaa haddii aan ninkan qofkan ruqsadda qaadanaya da'diisu ay ka yar tahay 15 jir hadday ka yar tahay ama aanu ahayn dhaxlaha rasmiga ee aanu ahayn, qofkaasi lama diiwaan gelin doono. haddii codsadaha si waafaqsan habraacan ama xeerarka dalka ay maxkamadii ay ku xukuntay xukun kama dambaysa oo markaa uu yahay qof dambiila, haddii ruqsad hore u haystay lagala noqday ama dembi lagu helay iyada lafteeda la siin maayo. haddii codsaduhu yahay shirkad kacday ama musallaftay markaa ay maxkamadina soo saartay awoodeeda leh shirkadaas inay kacday, markaa shirkadana la siin maayo. marka uu codsadu yahay ajaanib aan buuxin shuruudaha ku xusan habraacan ee aan ahayn aynu soo sharaxnay diiwaangelintii kumeel gaadhka ee ajaanibta loo sameynayay iyo tii rasmiga ahaydba, haddaanu taasoo codsan looma diiwaangelin doono qaybaha muwaadiniinta u gaarka. haddaynu barnaamijkeena ku socono bal cusboonaysiinta ruqsadda iyo wareejinta ruqsadda iyo sidoo kale ruqsad luntay ama waxyeelowday iyada bal faahfaahin naga sii qaabka loo marayo sida loo maaraynayo. haddaynu ku horeyno cusboonaysiinta ruqsad, markaa
ruqsadan waxay ku dhacaysaa sanad ayay ku dhacaysaa waxay shaqaynaysaa muddada ay shaqaynaysaa waxay noqonaysaa sanad dhammaanba gradada keliya A iyo B C ku dhacaysaa markaa wuxuu soo diiwaan gelinaya 30 cisho ka hor inta aanay ruqsadiisu ka dhicin wasaaradda markaa wuxuu soo gudbinayaa isagoo soo buuxinaya rafaaqyadii haddii uu doonayo markaa darajadiisii laga bedelana wuu helayaa foomamkii markaa ku habboonaa haddii haddaba aanay cusboonaysiinsan shirkadani si waafaqsan habraacan markaa waxaa lagu qaadayaa ganaax lacageed waxaa laga qaadaya ujuurada cusub iyo ganaax lacageed taasi oo markaa u dhiganta 2% oo ku dhacaya qadarka ujuurada cusboonaysiinta bil walba oo ka bilaabanta bisha aanu cusboonaysiinin oo si waafaqsan xeerka markaa cashuuraha bariga dakhliga guud iyo cashuuraha jamhuuriyadda Somaliland xeer lambar 2016 markaa waxaa ku waajibaya ganaax lacageed inuu bixiyo ruqsadda ujuuradeedii waa tahay hab noocyo loo raacayaa kala noqoshada ruqsadeed waxaa loo raacayaa markaa horta sababaha looga noqonaya waxaa ka mid ah in uu u isticmaalay ruqsadan ujeedda ka baxsan ujeeddada loo siiyey masalan oo kale shirkad siiyaba waxay wadaa mashruuc oo kale oo aan loo ogolayn markaa waa lagala noqonaya haddii ay tahay diiwaangelintan iyo ruqsadan marka horeba ku helay sifo baalmarsan sharciga oo markaasi ku caddaatay oo maxkamadda ku caddaysay in shirkadu qaadi weydo tallaabo sixitaana wasaaradda amartay inay waxaa ka bedesho qaabka ay wax wado iyo siday wax u dhisayso deetana waa lagala noqonayaa iyada lafteeda in shirkadda lagala noqday diiwaangelintii ganacsiga oo xeerlaaliyaha iyo xeerlaalinta guud ee qaranka ayaa waxay ka mas-uul ayaa ah diiwaan hayaha qaranka ah marka hadday iyagu kala noqdeen marka horeba ganacsi ahaan lagala noqdayba iyadana waa lagala noqonayaa in markaa maxkamada ay ku xukuntay faldambiyeed waxyaalahaasa lagala noqonaya markaa su-aashanaad weydiisay ah qaab noociyaba loo maraya waaxda markaa dhismaha ee wasaaradda howlaha guud ayaa qiimeyn dhab ah kasoo qoraysa shirkadan iyadoo qiimeynaysa qodobada markaasi laisleeyahay wuu ku gafeey habraacan ku jira haddii warbixinta kormeerka ay ku caddaatay in shirkadu aanay qabanin ama aanay shaqadii dhismaha guddida xafiiska markaa wasaaradda ah oo guddida la yidhaahdo diiwaangelinta iyo anshaxmarinta shirkadaha dhismaha ayaa soo qiimeynaya xaaladda dhabta ah ee haysata shirkadda iyagoo markaa tixraacaya warbixinta waaxda dhismaha haddii markaa guddidaasi ay xaqiijiyaan warbixinta waaxda dhismaha xafiiska diiwaangelinta wuxuu laalayaa ruqsadaasi warqad ayaa lagu siinayaa qoraal ah mulkiilaha shirkadda in shirkadiisii lagala noqday waay kacabashada go-aamada maamul iyaga bal waa si wanaagsan haddii intaa kaga nimaadno su-aashaas iyada bal ka waran kacabashada go-aamada maamul qaab noocya loo marayaan bay dadku marayaan bilaadan baa leeyahay qof kasta wuu ka caban karaa haddii la xayiray iyo haddii lagala noqday iyo haddii loo diiday in loo diiwaangeliyaba ama darajadii uu rabay loogu diiwaangeliyo qofkaas wuxuu xaq u leeyahay inuu muddo 22 cisho ah oo ka bilaabanta taariikhda lagu wargeliyey in la diiday ama markaas loogu diiday inuu wasiirka wasaaradda howlaha guud uu soo qorto warqad uu ku caddaynayo cabashadiisaasi wasiirku markuu haddaba helo codsigaas oo muwaadinku soo qortay ee ku jira qodobkan wuxuu magacaabayaa guddiga kooban 3 xubnood oo cabashadaasi soo darista muddo 10 cisho ahna ugu soo wargelisa haddii wasiirku markaasi go-aan kaga gaadhi waayo muddada 10 cisho ah oo ka bilaabanta maalinta warbixinta loo keenay ama codsaduhu ku qanci waayo go-aanka maamulka wasaaradda howlaha guud waxa uu xaq u leeyahay inuu cabashadiisaasi u gudbiyo maxkamadda jamhuuriyadda Somaliland oo ka mas'uula markaasi maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Somaliland ka mas'uula inay ka garnaqdo dacwadaha idaariga ah ee muwaadiniintu kaga cabanayaan xukuumadda xooga saaraysa waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka howlaha guud dhulka iyo guryeynta jamhuuriyadda Somaliland waa xigankeeni iyo qawligii guud iyo guryeyntii waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheeni jaangoynta himilada